بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ولا ليال قلبت وحا سيدي هور الله إعلاميي إنه بلاب مدونة فرديو aynu kaga fatwo dalban doono sheekheena fadiilada sheekh Maxamed Cabdi Umal fadhiyadaas oo 8 fadhi noqon doona insha Allah taala. waxaynu galabta u fadhinaa fadhigii koobaad insha Allah taala. waxa su'aalaheenu ay u badnaan doonaan سؤالها موسم كان يا وقت كان لجود شروع كوسابسن يدو شيخ وقتيه بدن وكلا ددوان عينو حلنو، لكن وحد عينو بدن دون سؤاله إن سؤالها بشا رمضان يحيابها الله حديرة بشاس كوسابسن وينسكب العبن دونا ويديها كوبات شيخنا وحوليه هي شيخ وحن أركي بشي رمضان markii aan u sheegay dadkii magaalada ila deganaa ee ila joogayna waa ay iga diideen mayaga ayaan la afuraa mise keligay ayaan iska soomaa. fadal sheekhana. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. إلهي التوفيق دعينا وفتشيو. مسألة waxaa ku jira ilaa 3 ra'yi ay culimadu ka qabaan 3 madhab la kala qabaa. qaar waxay leeyihiin culimadu dadka hal la soomo hana la afuro aragtidiisa isaga ku goonida ana waxa ka soo qaad male. sidaasi waxa weeyaan waa madhabka ay xanaabiladu qabaan waxaana rajaxaya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. waxayna daliishanayaan xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sawmukum yawma tasumun sawmukum yawma tasumun wa fitrukum yawma tafturun. soonkiinu waa maalinkaad soomaysaan mujtamaca muslimka la hadlaya, afurkiinuna waa maalinkaad afuraysaan. marka xugum gooniyo isagu ma leeyahay dadka ha raaco. sidaas qoliya qaba. qoliyana waxay kala qaadayaan soonka iyo afurka bisha shawaal arageeda. soonka waxay leeyihiin dadka ha raaco, ma soonka ha ku soomo aragtidiisa. afurkase yuusan keligii afurin dadka la afuro. waana sida ay u badan yihiin culimadu. waxa ixtiyaad loo sameeyaa masalada afurka waxa loo adkeeyay waxa la diidayaa inuu ku fududaado. marka soonkiina waxa la dadka la soo isagu ku soomi kara aragtidiisa, afurka se dadka la afuro. madhab waxa jira Imam Shaafi'i alayhi rahmatullahi oo qabo oo ah labadaba soonka iyo afuridda labadaba aragtidiisa khaaska ee laga qaadan waayay ha ku soomo hana ku afuro, laakiin ha qarsado. sidaas aadna moodaa inay u dhowdahay sawaabka u dhowdahay madhabka Imam Shaafi'i alayhi rahmatullah. masalada uu ka qabo oo ah haddii uu isagu bisha keligii arko oo dadku ka rumaysan waayaan ha soomo, laakiin soonkiisu ha u qarsoonaado. haddii sidoo kale bishii shawaal ay dhalato isaga keligii arko oo laga qaadan waayo laga rumaysan waayo ha afuro, laakiin afurkiisa ha qarsado. sidaas Imam Shaafi'i baa qaba. waana sida marka adilada iyo ahadiista ku soo aroortay masalada la isu geeyo aan isleeyahay sawaabku u dhow yahay iyo saxda. wallahu a'lam. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. ويديها اللباد
وحولي هاي شيخنا بشهر رمضان تيبا فضل بدن إن أن تراويح بدن تكدو إيا إن أن أخرستو قرآن بدن شخصي أهان تيبا إي فضل بدن labadaba waa laba cibaado oo fadli badan inaad quraanka badsato quraanka akhrido iyo inaad salaadaha badsato sida ugu fadli badan waxa weeye inaad salaada dheerayso oo aad quraanka ku dheerayso oo sida marka aad ku kulmiso salaadii oo tukanayso iyo quraankii oo akhrinayso sida ugu fiican way ugu fadli badan haddii xataa aadan quraanka xifdisnayn waxaad ka akhrisan kartaa misxafka adoo salaada ku jira sida ka sugan ummul mu'miniin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma iyo in badan oo salafka kamida marka sida u fiican wax weeyaan adoo salaad u taagan quraankaaga akhri haddii taasi ku suuroobi weydo waxay ku xidhan tahay adiga iyo saameynta uu kugu yeelanayo quraanka mise salaadu haddii ta'thiirka iyo saameynta salaadu ay ka badan tahay quraanka inaad gooni u akhrido salaada badso haddii quraanka heligii inaad akhrido saameynta noloshaada uu ku sameynayo ay ku badan tahayna marka quraanka akhriskiisa badso laana muhiimadu wax weeyaan ruuxu cibaadada wuxuu ka dhaxlayo iyo isbedelkay ku sameynayso iyo saameeyntay ku sameeyso taas aa muhiima marar badanna cibaadaadka waxa kala fadila iyagoo siman kolba ta'thiirka iyo saameyntii ruuxa ku sameynayaan wallahu a'lam barakallahu fiik wa jazakallahu khayran weydiyaha saddexaad waxa uu leeyahay sheekhana inta badan waxa igu taga sandaarsiga oo waxaan la qabsaday xilligii aan soonka ahayn ma jirtaa qaab loo sandaarsado bisha ramadaan inta lagu jiro nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiidkii laqiit ibn sabra وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما سندارسيغا كحل ديرو oo biyaha sanka ku foge inaad sooman tahay mooyee macnaheedu waxa weeye hadaad sooman tahay biyaha sanka aad ha ugu jiidin oo ha ku xeel dheeraan sababtuna waxa weeye sanka wuxuu u furan yahay hanqalaalka wuxuu u furan yahay dhuunta markay biyuhu xoog u galaan toos waxay u aadayaan caloosha oo xaqay u sibqanayaan sidaas daraadeed xilliyada kale oo aadan soomanayn sandaarsiga ku xeel dheero biyaha jiid si ay u nadiifiyaan sanka haddaad sooman tahay ha jiidin intan hore uun gaadhsii xoog ha u jiidin kadibna iska soo saar biyaha soo celi sidaasaa xadiidka nabigeenu cadaynaya sallallahu alayhi wasallam hadday dhacdo inaad adoo sandaarsanaya sandaarsigu kugu tago soonkii ma jabaya mise ma jabaya waa arrin ay fuqahada iyo culimadu ku kala aragti bedelan yihiin laakiin as-saxiix hadduusan ruuxu u qastin oo biyuhu ku sibqadaan soonkiisu jabi maayo lianna waa nooc min al-khata' khata'ana ummadan ilaahay waa ka koryaalay laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na فعلت بالله تبارك وتعالى الله هنو قبنين هدان اسموتسيس iyo gaf wax nooga dhaco iyo hadii halmaan uu nooga dhaco alla wuxuu yiri waan idin ka yeelay waakii xadiidka nabiga kumaani sallallahu alayhi wasallam in Allah tajawaza li ummati al-khata'a wa an-nisyana wa mastukrihu alayhi saddex arimood ummadda nabi maxamed loo dhaafay sallallahu alayhi wasallam marka wixii aan ku talagal ahayn waa sidii midalan taqsi muxuu ahay afka ka galay oo kale kadibna dhuunta u gudbay wixii hadaada ku talagelin oo si kala adoo u wada uu si ka noqdo markaasi cibaadadaada wax yeeli maayo saas daraadii soonkii ma jabayo laakiin waa inaad taxadarto way macnaha waa inaad taxadarto oo fududaysanin taas waxa xadiidku ka hadlaya wallahu a'lam barakallahu fiik wa jazakallahu khayra weydiyaha afraad waxa uu leeyahay sheekhana ruux ayaan afur ka bixinayay
macallin aan aqaano ayaan lacagtii afurkaas aan siiyey. waxaan ku yidhi lacagtaas waa afur aan qof ka bixinayo. maalinkii xigay ayuu igu yidhi lacagtii kuma aanan afurin ee dhar ayaan siistay. marka sheekh, afurkii qofkii aan ka bixinayay ma ka gudayaa maadaama macallinkii aan siiyey lacagta aanu ku afurin ee uu dhar siistay? ruux baan ka afuriyey, waxaan u fahmay markaan isticmaalka soomaalida aan garanayo, waxaan u fahmay ruux soomi kari waayay baan fidyo ka bixiyey. hadduu sidaa ka wado oo waxa uu bixiyey ay tahay fidyada waxaa la yidhaahdaa ruuxii soonkii kari waayey ama da u kari waayey ama xanuun aan rajo lahayn u kari waayey ayaa raashin laga bixiyaa. marka haddii ruuxaas aad ka bixisay fidya la yidhaahdaa, culimmada badankoodna waxay qabaan inay raashin noqoto oo lacag kuma baxdo. haddaad marka isagii lacagtii siiso oo tidhi raashin ku gado ama ku afur oo uusan raashin ku gadin, uu dhar ku iibsaday, fidyadii ma bixin. lacagtii ama ka soo cesho ama u saamaxoo ku sadaqayso, laakiin fidyadii waa in raashin ay ku baxdo waaye say culimmadu u badan yihiin. aayaddana laga qaadanayo ama nusuusta ku soo aroortay quudin baa ku soo aroortay, quudin iyo cunto siin ee lacag siin kuma soo aroorin. taa waa mid. hadday tahay ujeeddada su-aashu waxa la yidhaahdo afurinta dadka, oo maalan fidyo ruux ka baxaysa ma ahee waa sadaqa loo bixiyey inay dadku ku afuraan, ayadii buu wuxuu u isticmaalay inuu dhar ku gato. hadday su-aashu sidaas tahayna iyaduna waa la mid. laakiin ruuxa baxsaday oo isaga u baxsaday afur u baxsaday ajirkiisa waa helaya. kan khayaanada sameeyey dharka ku gatay ayaa dembi raacaya, oo sideedaba wixii lagu dhiibo ammaano ah, sidii lagugu dhiibay iyo wajigii lagugu dhiibay inaad ku bixiso. gaar ahaan markay tahay arrimahan shareecadu ay meel dhigtay, meeshii ay dhigtay meel aan ahay haddaad u leexiso, ruuxii ku dirsadayna aad khayaanto, markaasi waa inuu toobad keeno, lacagtii uu qaadayna waa inuu bixiyo, meeshii loogu talagalay dib ugu bixiyo. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran wa axsana allahu ilayk. su-aasha shanaad ama weydiinta shanaad waxay odhanaysaa, gabadh baa soo qortay, waxaan ahay gabadh iyada oo ay ka dhiman tahay afurkii 15 daqiiqo ayaan dareemay qoyaan hoose. kadib iskuma aanan taxallujinin, waayo haddii aan idhaahdo xaqiijii waxaan ka baqay inuu dhiig igu noqdo oo maantoo dhan soonkii aan soomanaa uu iga buro. markii aan afuray kadib ayaan xaqiiqsaday inuu dhiig ahaa. marka soonkaygii muxuu xukunkiisu noqonayaa sheekh? maadaama qoraxdii oon dhicin ay caadadu ku dhacday gabadha, soonkii wuu jabay. inay ka dhuumato oo ha fiirinin tidhaahdana waxba xukunka ka bedeli mayso. leanna waxa weeye wixii wax jabinayay waa la helay, wayna xaqiiqsato gadaal bay ka xaqiiqsatay inuu caado ahaa. qoraxdu intaysan dhicin inay caadadu ku dhacdayna waa xaqiiqa, marka soonkii wuu jabay. maalinkaa waa inay dib u soo qallayso, layskumana khilaafsana masaladaas. mid baan ugu dari lahaa gabadha iyo gabdhaha muslimaadka ah, cibaadaadka markay gudanayaan oo cibaadaadkii khayraadkii ay samayn lahaayeen ay caadadu ka jabiso, ilaahay tabaaraka wa tacaala waa ka naxariis badan yahay dadaalkii ay sameeyeen inuu ajir la'aan ka dhigo. maalinkii way qallayn, laakiin maalinkii dhannayd ee soomanayd ee af xidhnayd bilaash noqon mayso, ajir ilaahay waa u qorayaa.
ruuxa hadduu isagoo cibaadaysanaya cibaadadiisii ay ku timaado wax awood ilaahay oo isagu shaqo ku lahayn cudur baa ku dhacay wuu xanuunsaday maalan hurdaa la tagtay xisbigiisii cibaadadiisii bay seejisay ama safarkii baa ka tagsiiyey waxaa loogu qorayaa sidii isaga oo sameeyey oo kale sababta waxa isagu waa dadaali lahaa laakiin arrintan ku timid gabadhan maanta dhan soomanayd wax yar iyadoo qoraxdii dhici rabto soonku ka jabay ajir waa loo qorayaa shaki ma laha laakiin soo qalle way macnaha maalinka dib u soo qalle laakiin ajir la'aan noqon mayso taa waa qodobka labaad gabdhaha muslimaadka ah in cibaadadu markay cibaadaysanayaan dhiigga caadada inuu cibaadada ka kala gooyo inay waxoogaa ka xumaadaan oo waxoogaa dhibsadaanna iyaduna dhib ma laha صحيح البخاري وحا كسوغان من حديث عائشة نبينا صلى الله عليه وسلم حج كيسي حجة الوداع دمر كيسا لسعود عائشة كمد هيد وحي لهذا مركان مرينا ميشا صرف ليلة أيا عاددي يقول عضا بيتر حج كي بانا أحران مركزان اسكا أوي بيتر نبي عيسى قال صلى الله عليه وسلم أنا أوي مركزان وحوكو يدي محل لويس وحيت رسولك إلهي markaana marka lagu sii dhawiyay oo dawaafkii iyo hawlihii baa dhow rasuulkeena waxana igu dhacay weeytir markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam waa arin ilaahay ku qoray gabdhahii aadam uu dhalay ilaahay baa arintan keenay oo ku qoray marka tagto baytka tagto ifcali kama yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt in taxsi uu khayr sameeyo dhan adoo caado qaba samee kaliya toon kacbada u baad dawaafayne marka sida Aisha uga ooyday ayadoo xajkeedii wadatay in caado ku dhacdo yey gabadha yartuna ismoogtiisay ka warwareegtay inay fiiriso muxuu ahay caadada ku dhacday way ka dhuumatay marka waa garteed danka marka la yiraahdo laakiin waa wax Ilaahay qoray tabaaraka wa taala ahkaamna Ilaahay ka ratibay sideeda in lagu aqbalo waaye والله أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ويدين تأفراد شيخنا وحي الله دهي وحي فرين كيدي وحونا يغفري هل دلقو وحنكو عدة السنة يقولي جيجا يساقنا قولي واو كما قنا مركي هل عادة يقول عادي أيوم مالين سلانهان يقيمي كدب وحنسكو أرقنا يقوشا وهنا يقتقي أنا وحن مقالين كحاسك وعدة كتيرته أدي أي كلمان إن لم يتهاي سيدي سجوا سوء عشري أو كله مركز شيخ وحن كويدين يا سؤال كو أرنتي عن مقالي كلانكا إن أي كحرن تهاي إن لم يتهاي رجع سوء عشري ولا سوء عشري كبدي من نك نيادي سايا لو إيجيا مثل نيادي سكما حدنا لابا هدين نيادي ساي سان كحدناين soo celiska oo aanay rajciisa aanay ahayn soo celin aanay ahayn dambi miyaa ka dhalanaya kulankaas maadaama laba dhiig ay ii harsanaayeen maxaan yeelayaa ma labadii idhinna uun baan sii dhamaystirayaa mise dib baan u soo bilaabayaa haddii kulanka cunug uu ku calool galay isagana muxuu xukunkiisu noqonayaa waa afar su'aalood oo hal dhacda ka dhalan kara afar su'aalood koobaadi waxa weeye gabadhii iyadoo ciddada ku jirta ninkii furay oo u yimid oo u galmooday hadhowna markii ay weydiisay ku yidhi muxuu ahay niye igama ahayn sidaasi ma ku soo noqonaysaa mise kuma soo noqonayso haddii si kale loo dhigo soo ceshigu dumarka ciddada ku jira la soo ceshado ma fal buu ku xasilaa iyo ficil mise hadal buu ku xasilaa iyo waan soo ceshaday mid waa la isku waafaqsan yahay hadduu yidhaahdo waan soo ceshaday oo ku dhawaaqo waa soo ceshi taasi laakiin asagoon ku dhawaaqin waan soo ceshaday hadduu galmo sameeyo waa ficil
galmadaasi soo ceshi miyay ka dhigantahay mise kama dhigna saddex madhabood baa ku jira culimadu qabaan mid waxay leeyihiin ama ha niyoodo ama yuusan niyoonin marba hadduu u galmoodo waa soo ceshi waa madhabka xanafiyada iyo xanaabilada weliba xanafiyadu iyagu waaba ka sii dareena wuxuu dhaheen hadduu xataa dhunkado ama taabto ama xubinkeeda taranka fiiriyo shahwana u fiiriyo waaba soo ceshi bay dhaheen ilaahu muusan niyoon hadduu rabo laakiin xanaabiladu iyagu xidhay hadduu galmoodo xataa yuusan niyeysaninba madhabka ka soo horjeeda waa madhabka shaaficiyadu waxay qabaan sideedaba ficil iyo fal soo ceshi kuma dhaco ama ha niyeysto ama yuusan niyeysanin imaam shaafici iyo asxaabtiisina halkaasay mareen madhabka saddexaad waxa weeye falkan uu sameeyey galmada ah hadday niyo la socotay soo ceshi ah waa soo ceshi haddaysan niyo la soconinna soo ceshi maaha waana madhabka maalikiyada iyo riwaaya can imaam axmed madhabkaas baana xoog badan leanna falka iyo ficilku laba ujeedaba wuu yeelan karaa ixtimaal mid waa ixtimaali karaayo ninkan islaantii uu qabi jiray wada seexan jireen isaga yimid inuu isaga simbirrixday oo uu hawshiisa ka qabsaday isagoo soo ceshi iyo dantaa lahayn waa suurtagal ka uu ixtimaali karaa inuu soo ceshi ula jeeday galmadana waa suurtagal ficilku hadduu ixtimaal galo ama hadalka laba macna ixtimaali karana niya kala saarta niyada ruuxa ayaa kala saarto dhinac xoojisa marka ficilku soo ceshi sariix kuma ah adilla ku tusayso cadna ma jirto ficilku inuu soo ceshi yahay maadaama uu ixtimaali karayo waa in marka niyo la helo waaye haddii niyo aan la helin oo markuu galmoonayay uusan ku galmoonin soo cesho oo uu isaga galmooday sida xooga badan markaasi soo ceshi maaha waa qalad dhacay buu dhahay asagii hadduuba qirsan yahayba inuusan niyad lahayn oo soo ceshi uusan lahayn bimacneedu waxa weeyaan galmo khalad ku dhacday waaye soo ceshina maaha sidaasaa xoog badan masaladuna khilaafiyo waaye su-aasha labaad ee qodobkaa ka dhalatay waxa weeye miyaan dambaabnay jawaabteedu waxa weeye asaga niyad la-aanta kugu galmooday wuu dambaabay toobadkeen baana laga rabaa laakiin haddii ay noqoto ma si ruux zinaystay oo kalaa loola dhaqmayaa maya waaye oo shubha la yidhahdaa galmo shubha waaye xoogaa maadaama islaantiisi ay ahayd islaanta iyo ninka kala tegay hadday ciddada uu ku soo ceshan karo ku jirtana inay ag joogjoogto isla joogjoogaan baaba la rabaaba shareecada oo weliba ay isu qurqurxiso oo ay muxuu ahaay indha saraxaadiso suu u soo ceshado ilaa wixii waxaa la rabaa reerka inuu isku soo noqdo marka muxuu ahaayey la dhihi mahayo sidii zino oo kale ha loola dhaqmo laakiin waa nikaaxu shubha shubhadaasi waxay meesha ka saaraysaa xaddi ka dhalan lahayd galmada khaladka ah laakiin dembi way tahay waa inuu toobad keeno waay iyada gabadha dembiyada ma raacaya hadday moodaysay inuu ugu galmoonayo soo ceshi waa sida hadalkeeda ku jira waay iyadu dembi ma leh sababtu waxay tahay waxay moodaysay inuu yahay ninkeedii oo falkan ula jeeda inuu soo ceshanayo niyadiisana mayna ogeyn hadday sidaa islahayd dee ninkeedii u galmooday oo kale laga soo qaadayaayo ayada dembi raaci maayo dhankeeda wax dembiya ma raacay su-aasha saddexaad ee arrintaa ka dhalatay waxa weeye ciddadii ay waday laba cidday soo martay miya laba cidday laba dhiig bay tirsantay hal dhiig baa u laabnaa mid bay soo martay laba u laabnay soo maa galmaa dhacday
ma ciddadii haddana miyay bilaabi mise tii hore intii uga laabnayd unbay dhammaystiri meesha fuqahada qaarkood ay dhahaan tadaakhul ciddaad wax mushkila amal isagii un hadduu yahay laanna waxba isbedeli maayaan hadduu ilmo yimaadana kii hore hadduu ilmo uurka kusii jiray uu yahay iyo hadduu hadda uur galay toona labadaba uu ilmihiisii waa hadduu nin kale meesha soo geli lahaa waxaa la dhihi lahaa ciddadii horena kii horena ciddadiisii dhammaystir oo labadii laabnaa dhammaystir tu cusub oo kalena haddana samee laakiin waa isla isagii ciddadeedii unbay dhammaystiranaysaa hore taana waa sidaas waa su-aasha afraadi waxa weeye ilmaha hadduu ilmo uur galo oo galmadaa khaladkaa ilmo ku uur galo ilmahaasi yuu ku abtirsanayaa ma garacbaa mise ninkiibaa loogu abtirinayaa jawaabtu waxa weeye ninkaa loogu abtirinayaa waana ilmo sharciya waay culimaduna intaa waa isla ogol yihiin sababtu waxay leeyihiin galmadu waxay ahayd galmo shubho zina ma ahayn ilmahana sidiisaba waxaa nasab loogu sameeyaa ansaabta in loo sugo bini aadamka shareecadu way ku dadaashaa wax yar haddii loo heli karo oo nasab lagu siin karayo aabii loogu abtirin karayo waa lagu siinaya wax yar xataa baynamaa ilmaha inuu nasabkiisii waayo oo loo diido ay shareecadu aada u adkaysay hal arrin keliyuu ku waayi karaa arrintuu ku waayi karo waxa weeye inuu kii dhalay ee xadhigga ku dhalay maxkamad sharciya tago lecaantamo 5 dhaarood maxkamada horteeda ka maro inuusan ilmahan dhalin taasuu ku waayi karaa ilaa heer waxay shareecadu gaadhay xataa xaaskaagii ilaahay naguma keene xaaskaagii ood qabtay haddii nin kaleeto kuu dabamaro oo ilmo uur galo ilmihii adigana uu kaa suuroobi karo isagana ka suuroobi karo adaa iska leh alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar ilmaha gogoshaa iska leh ninkan gogosha leh islaanta qababaa ilmaha leh ninkan ka imaadka ahee soo duulayna dhagax baa lagu dili isagu ilmo uu qaatay iska dhaafa dhagax buu leeyahay marka wax yar baa loo raadinayaa ilmaha in nasab loo sugo bal waxay yidhaahdaan ilmaha inuu aabihii loogu abtiriyo keliya waxay ku filan tahay niyada ay ugu galmoonayo inay tahay ismoodsiis xataa hadduu ismoodsiiyo inay xaaskiisii tahay iyadoon xadhigba ugu xidhnayn oo uu saa ugu galmoodo niyadaasaa ilmaha abtirka siinaysa oo waa masaladay dhahaan wad-u shubha tanoo kale waaye oo naag islaan kale oo aan tiisiiba ahayn ayuu amin habeena uu isaga galmooday tiisii uu moodaya malaa isagoo safar ku maqnaaba gogoshiisii ugu yimid markaasuu iska barakeeyey waagii hore dee nal iyo waxba ma jirin guriga mugdiya uma laga yaabaa inuu iska barakeeyey marka malaha iyaduna waxba uma sheegina way iska wateen marka saasuu ku uurgalay xadhigba ma jiraba ogow laakiin ninkan islaanta u galmoonaya muxuu ugu galmoonayaa inay xaaskiisii tahay soo maaha intaasaa ku filan inuu ilmuhu abtir helo shareecadu way ku dadaashay in intii suurtagala abtir loo sameeyo carruurta waxaa yeele xuquuq badan baa ka dhalanaysa oo laga ilaaliyo in laga dhigo ilmo zina ku dhashay intii loo heli karo waa in loo raadiyo waahay marka ilmaha waxa weeye waxay dhahayaan culimmadu galmadu shubhay ahayd culimmada qaarkoodna waaba qabantaan soo sheegnayba galmadu xataa hadduusan niyad la imaanin soo ceshi inay tahay culimmada qaar baa qabay soo maahayn meelahaasaa marka ilmaha wax looga raadinayaa ilmuhu marka waa ilmo sharci oo saxa weeye wallahu aclam weydiinta lixaad sheekhana waxa ay odhanaysaa ninkaygii baan kala tagnay anoo ciddadii ku jira ayuu yidhi waan ku soo ceshtay anna meeshii kama aanan qaadin waxaan kala maqnayn muddo 2 sano ah annagoon is arag xitaa markii uu yidhi waan ku soo ceshtay 2 sano kadib ayaan Nairobi isku aragnay oo aan habeen wada seexanay kadibna dib dambe isuma aanan arag maxaan sameeyaa sheekh Soomaali imtixaan baa haysta qaxeedii baa wax badan keenayo dib badan baa taagan su'aalaha ugu badan waa su'aalaha qoysaska furitaanka guurka xuquuqdooda
waxaasa u badan su'aalaha inta badan wadaadada u yimaada mas'alada gabadha markii ninkeedii uu furay oo uu ku yidhi waan ku soo ceshaday iyadoo ciddada ku jirta iyaduna ayna waxba ka soo qaadin khalad baa halkaa ku jira iyada khaldan sideedaba arrinta soo ceshiga haweenaydu haddii dalqadii koowaad lagu furo ama tii labaad lagu furo oo tii saddexaad laaban tahay soo ceshigu waa xaq uu ninku leeyahay haweenaydu inay raalli ku noqotana laazim aha في سورة البقرة أبو إلهي كشيغي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وحكوه الرئيسي الطلاق مرتان فريتان كهوين كاللقوسو عشان كرو واللبا دي تلقضو دي هوري مركزا إلهي وحوري تار دحدادا لبدا تلقضو عددو دا انت كتشرتو سو عشي جيدا رقا حق له raggooda ayaa xaq u leh waa xaq ninku leh hadduu marka iyadoo ciddadii ku jirtay ku yidhi waan ku soo ceshaday anigu waxba kama soo qaadin maxaa la yidhahdaa inaad wax ka soo qaadaba looma baahnaba inaad raalli ku noqotaba looma baahna jaa isaga iskale xaqan waana ku soo ceshaday xaaskiisii baa tahay haddaadan rabin mar kale haddana dood ka keen ama furitaan kale ha kugu sameeyo ama maxkamad ha kaa furto لكن حاسبة هاي طيب أنا ما عندنا مركز واشي كبرنا أيضا سيدا اللقوسو عشدي لكن أيضا أن رميسانين إني حاسته أيي كلا تغير الله بس أنا كلا مقراي كدي ابن مرم بالله كل ما يواليس بركي ما عندها هنا مركا وانين بعدي دي سيو كم مقريد هلاي واي وأنا الحاسكيسي هلاي واحد أيضا إنه الرميسنان بينه حاس إلى حاسته لكن حاسكيسي أو صحة أي هاي قلمضنا صحبه قدالت بهدنا والي سواي ولكن ماشي يقول بس يقعد هذا لا نين كذي ويه إنتان أوجي نين بو هاي هرتته أنا جاوبت السؤال هذا يهشوا أما دقشوا أما تجد ميدون هكاش إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هدي ويدو وأسيد دمر بدن الصومالية ما أنت هيسته هدي ويدو كان يعرب ماله دقي مركا كدب وحا أفرن إني قاضية أوتكتو أو أي إسفسقدو وحرقي مركا أوتكويو وقاضي كويو والله أعلم جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك سؤال شيء كلن كان ما أنت وجودن بيسا وحي أورانيسا شيخنا دتك كو أفوري هذا كسو يري مسؤولكي مسلمين تا دولكا يكون ولايين كدبنا دبك أوجادا إن مالني أي دافتي أو أركي بشي أو لبعة دتكاس محكم كود نقنيا مالين تاسي مالين دافتي أو أي سوء علين أيام با oo ay dib ka soo soomayaan mise sidaas ayay ku dhaaftay oo iyagu laguma laha qalle masalada aragtida bisha lagu soomo ama lagu afuraa khilaaf fuqaada dhexdooda yaala isku khilaafsan yihiin waana khilaaf caan ah oo soo jiray qolo waxay leeyihiin aragtidu meeshii laga arkaba hal qaato day sugnaato وانا مذهبك علماء u badan yihiin jumhuurtu qabaan waa qolina waxay leeyihiin sida deegaan ahaan la isu raacsan yahay oo mataariicda la isugu dhow yahay hal la isula soomo la isula afuro tan hadda caalamul islaami ka jirtay horay uma jirin oo caalamul islaami waxa qaybiyay oo dawladahan ka dhigdhigay waa gaalada meel ay muslimiintu intay ku kulmeen ay dhaheen aan intaasoo dawladood noqon xuduudda kala samaysan ma jiro laakiin reer galbeedka markay qabsadeen ayay kala jarjareen oo ay dawladda duwaylaadkan u sameeyeen marka
dawlaadkan hadda jiray caalamul islaami ka dhisan in lagu saleeyo masalada aragtida soonka iyo afurka in lagu saleeyo hal qodob bay ku imaan kartaa khilaafka hal la yareeyo waana sida ay culimadu marayaan khilaafka hal la yareeyo oo halkii balad halkii wadan dadkii wada joogay inta iskhilaafi lahaayeen hay isla soomeen oo hay isla afureen oo amarka nidaamka iyo dawladdaas ha qaateen waxay ku socotaa masaladaasi marka min baab taqliil al-khilaaf khilaafka hal la yareeyo laakiin mas'ala asal kule ma aha khilaafkii hore ee fuqahada waxaan saa u leeyahay wadaadadeenii fuqahada ahaa ee kutubta fiqiga akhrin jiray markay ku arkaan fiqiga shaafiiciyada kale ikhtilaafu al-mataalic ba waxay u qaadanayaan inay tahay dawladahan xuduudaha kala leh fiqiga iyo fahamkana totally waa mid khata ah sax ma maxay yeelay midaal baan idin siinaya magaalada Mandera iyo balad xaawo intay isu jiraan hal magaalay bay hadda wada noqdeen ka waran haddii la yiraahdo Manderana waxay la matlac tahay Nairobi balad xaawana waxay la matlac tahay Muqdisho waa soconaya ma meeshan marka ma gali karto mana galayso masaladii la dhigi jiray ikhtilaafu al-mataalica ee kutubta fiqiga ku taalay totally ma gali karto laakiin sida culimada mucaasiriinta qaar kamid ah ay leeyihiin intii isku dawladba hay isla soonto hay isla afurto waxay ku saleynayaan khilaafka hal la yareeyo khilaafka hal la yareeyo masalada bay ku duleen waa sharka uun hal la yareeyo taas waa mid waay haday marka cadaato in aad ku soontay dawlad aad hoos joogto amarkeed ama cid wax ku sheegtay amarkeed warkiisa aad qaadatay gadaalla ay kaaga cadaatay inay ku dhaaftay maalin aduu saa doonto u cadayso hadday ku cadaatood hubsatay inay maalin ku dhaaftay waa inaad soo qalayso laakiin waa inay cadaato say kugu cadaan kartaa مثلا waxay ku cadaan kartaa inaad 28 beri soonto kale hadii 28 beri adoo sooman oo bishii la arko ay cadaato macnaheedu wax way aragtidaad ku soontaa mid damba ahayd waad khaldantay laana wax way ma noqoto bishu 28 nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam mid bay noqotaa ama 29 ama 30 bay noqotaa waxa khalad ah intaad horay u khaldantay oo bishii oo la aragtay ku soomi la arkay aad ku soomi weyday oo soonkaagii dib dhacay oo 28 markaad soomantahay bishii ay banaanka timid haddana inaad diido tiraado ma wax ma arki oo ismoodsiiso diido si aad khaladkaagii khalad kale haddana ugu sii dhisto oo haddana maalin ciid aad haddana u sii soomanaad waa inaad afurto kadibna maalin soo qalayso tawa mid waay ama bisha weynideedii aragti yaraanteeda waxba lagu ma dhiso bishii xalaan aragnayo meel kore joogto laba ahayd ma habeen waragno way yareed laba ma noqon kartaba waxba lagu ma dhisataa iyada sababtu wax weeyaan nabigu sidoo sheegay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka biluhu way weynaan doonaan i'tibaaraad bayna leedahay meesha marka aad joogto iyo biluhu say u kala duwan yihiin bay arintaasi ku xidhan tahay taas marka laguma go'aansan karo inay maalin ku dhaaftay iyo inaad maalin ka tagtay iyo inaad hor dhacday iyo inaad dib dhacday ayada laguma saleyn karayo laakiin waxa la sugi bisha dhamaadkeeda haddaad 29 soontay waa soon sax haddaad 30 beri soontay waa soon sax labadaba bishu way ku dhamaataa nabiga sallallahu alayhi wasallam waa marka la yiraahdo aragtiyo kala gedisan baa lagu soomi karaa markii la qabsado labaduba sax bay noqon karayaan والله أعلم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. إلهي سبحانه وتعالى شيخها كعب المريو جوابها وينغسي سؤاله يويديمه إن ويديني بالشدة كيمي إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كنسا وقعص لأيو إنك أنا هاي نقدك وكو كفايدة استه وكو رقمة علمي الشيخ وينوشيغي كلن كان قلبته وحاكي كوباد إن شاء الله تعالى وحكا بين دونا تضبط كلنا وكلاء وفتوى سيدي مسجد كلاجي إعلامية إمام الكيا علماء المسجد كاي شيئين كلنا كنا لبعض وبري إن شاء الله تعالى عصر كي بعد العصر
wixii su'aalo ah waxa lagu soo hagaajin doonaa Sheekh Cabdirashiid insha Allah ta'ala wabillahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam page-ka masajidka sigiska Facebook-ka waa lagu soo qori karaa iyagana insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam.